calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamaya asxaabay meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafaheeda. fideogeena wuxuu ku saabsan yahay fawaa-idka geelu noo leeyahay iyo caanaha geela fawaa-idka ay jirkeena u leeyihiin. asxaabay saad ogtihiinba geelu waa xoolo aada iyo aada u wanaagsan oo wuxuu u dulqaadan karaa geela oonka ayuu u dulqaadan karaa oo 30 beri ayaa laga yaabaa inuusan biyaba cabin. geela tan kale kulaylka ayuu u dulqaadan karaa. saad ogtihiin wadamada geela ugu wanaagsan laga helo waxaa kamid a wadankeena iyo khaliijka carabta, iyaguna waa saxraa oo geelu saxraha iyo kulaylka ayuu u dulqaadan karaa. geela baruurtiisa wuu kaydsadaa kadibna biyo ayuu u bedeshaa. subxaanallah, geela wuxuu cuni karaa milix aada iyo aada u tiro badan, sidoo kale wuxuu cabi karaa biyaha badda oo geela subxaanallah hadduu milixa cuno milixaas caanihiisa uma gudbayo, dhiigiisana uma gudbayo, maxaa yeelay allaha raxmaanka ayaa geela wuxuu ku manaystay keliyo filtaraareynaya milixa uu geelu cunayo oo caanihiisa ma soo gaarayaan. sidoo kaleeta geela subxaanallah waxaa jira dadka markay isdagaalaan oo layska dilo rag, ninka 100 geela oo diya ayaa laga bixiyaa oo labadii qabiilo way heshiisaa, geelu wuuba qaboojiyaa. sidoo kale fawaa-idka geela maxaa kamid a geela gabadha gabaati ayaa looga bixiyaa ama yarad ayaa lagaga bixiyaa. sidoo kaleeta geela meesha ay magtu ka imaatay saad ogtihiinba cabdimudalib rasuulka awowgii sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa nin ka shaqeeya dadka ayuu xujayda ayuu wuxuu ka waraabin jiray biyaha samsamka. alle ayuu wuxuu ka baryay inuu ilaahay ku irsaaqo 10 wiil. wuxuu yiri ilaahay haddaad 10 wiil isiisid mid ayaa nadrayaa. alle wuxuu ku irsaaqay cabdimudalib 10 wiil iyo 6 gabdhood. markaas cabdimudalib waxaa ugu yaraa wiilashiisa cabdullaahi, rasuulka aabihii sallallahu calayhi wasallam aadna wuu u jeclaa. wuxuu u tegay kaahinada ayuu u tegay oo wuxuu dhahay ani nadarkaygii baan rabaa inaan guto. marka waa loo qori tuuray. markii la qori tuuray wiilashii 10ka ahaa cabdullaahi ayaa soo baxay. cabdullaahina aada ayuu u jeclaa cabdimudalib, haddana wuu ku qancayo wuxuu dhahay waan gudanayaa nadarkaygii. laakiin quraysh ayaa waxay dhahday haddii ninkii 10 wiil laba wiil uu bireeyo oo uu dabxo waxaa waajib bay nagu noqonaysaa, mag baan bixinaynaa. marka waxay sameeyeen way u qori tuureen geelii iyo cabdullaahi ayaa loo qori tuuray. markasta oo sahamka loo tuuraba waxaa soo baxayay cabdullaahi ilaa uu geelii 100 gaaray. subxaanallah, allaha raxmaanka ayaa cabdimudalib wiilkiisa cabdullaahi wuxuu ku furtay 100 geela sidii ilaahay uu ugu furtay nebi ibraahim calayhi salaam wiilkiisii ismaaciil kabshil fadda ayaa subxaanallah. allana cabdullaahi waxaa idmaneyd rasuulka aabihiis ayuha sallallahu calayhi wasallam. marka magtu halkaas ayay ka imaatay. saad ogtihiinba waagi hore lama haysan waxa loo yaqaano baabuur oo badeecada iyo businesska waxaa lagu kala gudbin jiray geela ayaa la saari jiray oo geela ayaa u kala gudbi jiray qaarado. saad ogtihiinba geelu waa 2 nooc, waa dhadig iyo labka waa la rartaa, reeraha ayaa ku guura, caruurta ayaa la saartaa iyo dadka sheebka. dhadigana waxa caanihiisana waa la maalaa, tarankana wuu badiyaa. fawaa-idka geela uu nooleeyahay asxaabay geela caanihiisa waa daawo, maxaa yeelay geela wuxuu daaqaa boqolyaal geed oo kala duwan oo aan xoolaha kala gaarin. geed kastoo ilaahay abuurayna wuxuu leeyahay faa-iido iyo caafimaad. haddaba fawaa-idka ay caanaha geela nooleeyihiin maxaa kamid a faa-iidada koobaad, caanaha geela haddaad cabtid waxay daawo u yihiin dadka sokorta qaba oo weliba dadka qaata ansuliinka. sida daraadeed caanaha geela way yareeyaan sokorta dadka qaba way ka yareeyaan. waxaa jira caruur xanuunsan oo caruur aan jecel inay keligood meel fadhiyaan oon ciyaalka la cayaarin oo xanuun dhinaca neerfaha hayo oo doqon u malaynaysid, haddaa magaciisa ugu yeeraysidna aan asagoo ku maqlayo kuu dhawaaqi karin. sidaa daraadeed caruurtaas xanuunkaas qabta waxaa la ogaaday markii caanaha geela la siiyey way caafimaadeen. sidoo kale geela caanihiisa haddii aad cabtid wuxuu kor usoo qaadayaa difaaca jirkaaga hadduu adkaago fitamiin D-gaaga kor buu usoo kacayaa, kalsiyomkaaga aad ayuu u siyaadayaa. sidoo kaleeto caanaha geela haddii aad cabtid waxayba la diriraanba mikroobaadka iyo fangaaska iyo bakteeriyada jeermiska ku jira caloosha. maxaa yeelay caanaha geela waa daawo ayay waxay u yihiin caanaha geela beerka. sidoo kale fawaa-idka caanaha geela waxaa
kamida daawo ayay waxay u yihiin qeyb kamida allergiga amase xasaasiyada ka dhalata cuntada sidoo qeyba cuntada kamida. sidoo kale caanaha geela hadii aad cabtid waxaa ku jira waxyaabo aad iyo aad u tiro badan oo fitamiina oo lasoo koobi karin oo caafimaadka jirkeena u wanaagsan sida fitamiin A, fitamiin C. sidoo kale caanaha geela waxaa ka buuxa bir baa ka buuxda, macdan ayaa ku jirta aan lasoo koobi karin. caanaha geela asxaabay waxay daawo u yihiin dadka aneemiyada ama dhiig la-aanta qaba maxaa yeelay bir aad iyo aad u sareysa ayaa caanaha geela ku jirta. sidoo kaleeta caanaha geela waxay ilaaliyaan heerarka oksijiinka dhiiga taas oo kaa caawineysa socodka dhiig mareenyaalkaaga. sidoo kale caanaha geela waxay yareeyaan heerarka kolestaroolka xun oo jirka ku jira waxayna ilaaliyaan caafimaadka wadnaha iyo halbowlayaasha. caanaha geela subxaanallah daawo ayay waxay u yihiin kansarka xanuunka loo yaqaan maxaa yeelay waxaa ku jira waxyaabo badan oo ka hortaga. tan kale waxaa lasoo ogaaday baaritaano la sameeyey 2002 inay ku jiraan kaadida geela in laga helo maado daawo u ah kansarka ku dhaca mindhicirka. subxaanallah caanaha geela waxay daawo aan lasoo koobi karin u yihiin lafaha inay daciifaan oo caanaha geela hadii aad cabtid lafahaaga way adkaanayaan wayna korayaan oo ilmahaaga maanta laga bilaabo caano geel sii. dadka caanaha geela caba muruqyadooda waa waaweyn yihiin, way dhismaan wayna dheeraadaan oo ma arkaysid qof afrikaan oo gaaban. caanaha geela lafaha ayay xoojiyaan subxaanallah. sidaa daraadeed waxaa ka buuxa caanaha geela aad iyo aad calcium u tiro badan oo aan laga helin caanayaalka kale. caanaha geela waxay la diriraan dhibaatooyinka keena dheefshiidka la xiriira iyo inay calooshaada aysan socon maxaa yeelay geela markuu dhalo caanihiisa dambar baa loo yaqaan. waa caano aad u macaan hadii aad cabtid qarasta ayaaba kaa baxaysa. caanaha geela subxaanallah waxay la diriraan xanuuno aad iyo aad u tiro badan. sidaa daraadeed caanaha geela daawo weeye. caanaha geela waxay u siyaadiyaan firfircooni iyo nashaad ayay waxay siiyaan hooyada xaamilka sababtoo ah caanaha geela waxaa ku jira canaasir nafaqo leh oo caafimaad u ah hooyada xaamilka iyo ilmaheeda. caanaha geela waa daawe maanta laga bilaabo hamoogaan. asxaabay fiidiyowga like dhahaya, haddaad nagu cusub tahayna subscribe dheh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.